Mona Lisa waa sawir gacmeedka ugu caansan looguna daawashada badan yahay dunida. Waxa sanadkii soo booqda dad tiradoodu dhan yihiin 9 milyan oo say kala yimaada daafaha dunida. Sawir gacmeedkani waxa sameeyay farshaxaniistii caanka ahaa ee Leonardo da Vinci kaasi oo dhashay dalka Talyaaniga. Waxana uu sameeyay sanadii u dhaxaysay 1503 ilaa 1519 taasi oo ka dhigan inuu sawirkan kaliya sameeyay 6 sanadood. Leonardo isagoo ku sugan xilligaasi Florence ayaa boqorkii xukumayay waqtigaasi Faransiiska waxa uu wakiishaday inuu sameeyo sawirkan kuna dhex sameeyay Florence. Kadibna sidaas ayuu mulkiyadeeda kula wareegay boqorkii Faransiiska ee loo yaqaan France 1 muddo kadibna waxa maad aragtay sawirka mulkiyadiisa la wareegay boqorkii isagana loo oran jiray Louis 14aad. ugu dambeynna markii kacdoonkii Faransiisku dhacay ee Faransiisku qaatay nidaamka jamhuuriga waxa sawirkii mulkiyadiisa la wareegay jamhuuriyadda dalka Faransiiska sidaasna wuxuu ku noqday dhaxal guud oo dadka reer Faransiiska dhaxeeya. Sawirkani waxa lagu tilmaamay inuu yahay midka ugu qaalisan dunida farshaxanka marka la eego qaabka loo sameeyay. Haddaba su'aashu waxay tahay waa ay gabadha sawir gacmeedkani ku sawiran. Gabadha sawir gacmeedkani ku sawiran waxa ka taagan khilaaf fara badan. Taariikhyahanadu in badan bay maad aragtay dhinac walba uga hadlaan gabadha ku sawiran sawir gacmeedkani Mona Lisa sida weyn uga caan baxday caalamka taasi oo maad aragtay xataa laga sameeyay heeso kala duwan oo afaf kala duwan lagu qaaday. Heesahaasi waxa kamid ah hees uu qaado fanaankeena Soomaaliyeed ee Cawaale Aadan oo ku soo daray magaca Mona Lisa. Gabadhani laga sameeyay sawir gacmeedkani Mona Lisa taariikhyahanadu way isku khilaafsan yihiin. waxana mana jirto wali aragti sugan oo maad aragtay ka hadlaysa cidda ay tahay ama qofka saxda ah ay tahay gabadha ku sawiran Mona Lisa. taariikhyahanada qaar waxay aaminsan yihiin in gabadhani ay tahay xaaskii uu qabi jiray milyaneerkii weynaa ee reer Florence kaasi oo isagu maad aragtay ka codsaday Leonardo inuu xaaskiisa u sameeyo sawir gacmeed sidaasna sawir gacmeedkii lagu sameeyay. sidoo kale waxa isaguna jira taariikhyahanno kale oo ka soo horjeeda aragtidaasi oo iyagu aaminsanba inay maad aragtay tahay gabadha sawirkani laga sameeyay hooyada dhashay sawir sameeyaha laftarkiisa. kuwa kale ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin in sawir gacmeedkani qofka ku sawiran uu yahay Leonardo laftarkiisa oo maad aragtay uu sawirayay bal hadii uu noqon lahaa gabadh qaabku way kaan lahaa. kuwaasi waxay cuskanayaan ama cadeymo ka dhiganayaan muuqaalka guud waxay leeyihiin wuxuu leeyahay wajigii Leonardo sidoo kalena haddana waxa ku dhex jira shakli gabdheed ama muuqaal gabdheed baa ku dhex jira marka wuxuu ka waday hadii uu lacag gabadh noqon lahaa qaabku way kaan lahaa oo kale ayuu sawirayay. isku soo wada duubo sawir gacmeedkani ilaa iyo hadda waxa lagu tiriyaa inuu yahay xujo farshaxan oo aan wali la furin si walba la isugu dayna aanan maad aragtay jawaabteeda saxda ah cidda uu yahay qofka ku sawiran sawir gacmeedkani aan wali lahayn. haddaba maxay tahay sababta ugu weyn ee sawir gacmeedkani Mona Lisa sidani weyn caalamka hal mar caan uga dhigtay ama uu caalamka oo dhan u gaaray kuna helay booqashada 9 milyan oo qof oo dunida dacaladeeda ka soo booqda sidoo kalena uu qayb weyn ka yahay dhaqaalaha dalka Faransiiska. sabab badan baa maad aragtay loo aaneeyaa laakiin waxaan soo qaadan doonaa laba sababood. sababta koowaad waxa weeyaan sawir gacmeedka Mona Lisa waxa uu yahay madxafka dunida ugu weyn ee loo yaqaan Louvre kaasi oo ku yaal dalka Faransiiska maadaama madxaf weyn yaala dad badan ay soo booqanayaan waxay qayb ka noqotay inuu sawirkani caan sii noqdo sanad ka dambaysa. sababta labaad ee sawirkani sidani dhinaca caalamka caan uga dhigtay keentay inay 9 milyan oo dunida kamid soo booqdaan sanad walba iyadana waxa lagu sheegaa in looxa sawirkani ka sameeyay mid aad u cajiib ah sidoo kale sameynta sawirkan markii la sameeyay lagu beesgariyay xisaabaad kala duwan. gabagabadii Mona Lisa waa sawirkaas aan idinka soo sheekeeyay ee dunida magaciisu qabsaday waxaana uu ka qayb qaataa dhaqaalaha dalka Faransiiska. arinta cajiibka ah ee aan sheekadii la wadaagay ayaa waxay tahay dawladda dalka Faransiiska ayaa waxa ay diiday lacag walba oo sawirkani laga gadan lahaa oo loo soo bandhigay xataa bilyanis hadii loo gaaray waxa ay tirmay uma gadayo. sababta ugu weynna waxay tahay sawirkan wuxuu kala qaalisan yahay dawladda Faransiiska wax walba oo lacag ama goyn kara oo qiimo oo markaa ahaan loo keeno. waxaana sidoo kale ku tilmaamaan inuu yahay dhaxal dalka reer Faransiis ay dhamaantood wada leeyihiin. su'aasheedu waxay tahay inagu Soomaali ahaan ama si guud ba Afrikaan hadaynu nahay maleenahay dhaxallo waaweyn oo noocaas oo kala oo ay dawladaheenu ilaaliyaan. adiga say daawanaya qiimo intee leeg baad ku gadan lahayd sawir gacmeed si gaar ah hadii sawirka Mona Lisa maanta lagu keeno qiimo lacageed oo intee leeg ayaad ku iibsan lahayd maxaad ku qaban lahayd.